shir balaano beesha gaashaanbuur Axmed Faarax uga socday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer 3 maalmood ee ugu dambeeyay ayaa la soo gabagabeeyay shirkan oo ay beeshu kaga arsanaysay deegaanada ay degto oo ay ka mid yihiin gobolada Saaxil Togdheer iyo waliba gobolka Bohoodle ayaa waxa ay halkaasi ka soo saareen qodobo ka koobnaa 12 qodob oo shirkaas lagu soo afmeeray waxaana shirkani ka qayb galay Suudaanka guud ee beeshaasi Cuqaasha marti sharaf lagu casuumay oo ay ka mid ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo iyagu la kulmay xiritaanka shirkan kuwaas oo hormuud ka ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo madaxtooyada Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo Xirsi Cali Xaaji Xasan kanoo ay ka muuqato runtii muwaafaqo iyo ka muuqato midho wanaagsan oo halka laga jeediyay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay mar labaad waxaan ku faraxsanahay waxa weeye iyadoo aan wax qeylaa iyo wax qaxar iyo wax dhibaato cid loo geysanaya aanay jirin mar saddexaad waxaan ku faraxsanahay taageerada xukuumadda u muujiseen waad ku mahadsantihiin taageerada hore taageerooyin badan oo dambana waan idinka baahannahay waxaad idinka baahannahay xukuumadda inaad nagu galow gashaan oo runtii hawsha haddaanu hayno dee nagu galow istaagtaan baanu idinka baahannahay waxaanu idinka baahannahay inayd wax wanaagsan isku kaashano wax walba xagga samada yaalaan dhulkaba ma yaalaan ilaahay bay yani wax walba agtiisa ka qoran yihiin inaynu ilaahay weydiisano ilaahay wax wanaagsan noo dooro ilaah uma dooro naqana kulanadkii xafladdaasi waxaa ka hadlay madaxda gobolka Togdheer maayarka degmada Burco iyo waliba xubno ka mid ah Cuqaasha shirka qabsatay waxaana ka mid ahaa hadaladoodii mar ay halkaasi ka hadlayeen xubno ka mid ah Cuqaashu xukuumadda aanu ku garab taagana kuna dooranayna waxaan ku soo gabagabaynayaa odayaal badan baa ka hadli dooneen ictiraafka Soomaaliland haddaa xukuumadda tihiin dadaalkeeda inaad kordhisaan oo aanu qaranmada dunida ka jira inaanu noqonnaa baanu idiin dooranaynaa ha ka daalina ku noqda turkiga oo qura maaha ee dunida albaab walba garaaca sidaanu qaran jira u noqon lahayn geesi kalena waxaa shirkaasi ka hadlay xildhibaan Cali Xasan Maxamed oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland kana qayb galay xiritaanka shirka xildhibaanka oo hambaliyay beesha shirka qabsatay iyo waliba qodobada ay ka soo saareen ayaa waxa uu yiri guddiga horeerka iyo shirka soo qabanqaabsay iyo ganacsatada iyo Cuqaasha magaalooyinka kale soo qabanqaabiyay iyo ergadii saddexda maalmood hawlahan la fagulisay maanta ku soo gabagabaysay aad iyo aad baan mahadsantihiin jazakumullahu khayr waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubnaha maamulka degmada iyo ka gobolka oo iyaguna hambaliyay xiritaanka shirka iyo waliba qodobada ka soo baxay gabagabadii shirkaasi waxaa soo afmeeray Suudaanka guud ee beesha gaashaanbuur Axmed Faarax Suldaan Maxamuud Guuleed Mire oo tilmaamay in shirkani uu si najaaxa u soo dhamaaday isla markaasna fariinta ay dirayaan ee nabadda ah ay u dirayaan guud ahaan beelaha ay beeshu daris wadaaga tahay ilaahayna ku mahadinayaa shirkii mubaarak lix inuu dhamaaday oo si aad iyo aad u wacan u dhamaaday aad iyo aad waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala idinka baryayaa beelaha Soomaaliland iyo dadka walaalaha muslimiinta uga baryayaa ilaahay inuu kor inoo qaado halka maanta joogtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kor idinka qaadan mooyaane ilaahay dib idinka dhigin tawfiiq iyo toosnaan diinta ku toosnaataan baan ilaahay idinka baryayaa waa Muniir Axmed Cigaal Cabsaar Sabri telefishinka qaranka magaalada Burco.